waxa aad daba orodaa qofka aad jeceshahay, waxa aad dartiisa u samayn kartaa wax kasta, waxa aad dadaal ku bixisaa sida aad qofka isu jeclaysiin lahayd, ugu dambaynna waad ku guuldaraysataa. haddaba ma isweydiisay su'aal ah, maxaad u weydaa qofka aad jeclaato? maxaad u noqotaa daciif markaad wax jeclaato, halka lagaa rabayn jacaylkaasi aad ka heshid awood iyo karti, xitaa haddii lagaa aqbali waayo? waxaan filaa inaad suganayso jawaabaha su'aalahan, waxaadna ka dhex heli doontaa muuqaalkani gudihiisa. dareen kasta oo qofka bini'aadamka ku beeran waxa ay leeyihiin meelo loogu talagalay inay ka soo bilaabmaan. haddii meeshaasi meel ka baxsan ay ka soo bilaabmaan, waxa u dambaysa niyadjab iyo quus. hadda waxa aad isweydiinaysaa waa xaggee meesha ay ka soo bilaabmaan? jawaabtu way fududahay, waa naftaada gudaheeda. ka hor inta aadan qof jeclaanin, jeclow naftaada si ka daran sidaad qofka u jeceshahay. sababtoo ah qofkeena wax uusan haynin ma bixin karo, keliya waxaad bixin kartaa waxa aad hayso. dareenkana waa la mid. haddii naftaada si saa'id aad u jeceshahay, dhaqankaagana ay ka muuqato, waxaa hubaala in qof kasta uu ku jeclaanayo, waayo waxaa saameyn ku yeelanayo sida aad naftaada ula dhaqantid. qofkan waxa uu jeclaanayaa in isaga ama iyada sidaa loola dhaqmo. qofkan waxa uu la cajabayaa sidaad naftaada u jeceshahay. mar haddii uu cajab geliyana waxaa ku soo xigto xiiso iyo jacayl. marka hore inta aadan qof jeclaanin, adiga iska buuxi jacaylka, kadib ayaad bixin kartaa jacayl. waxaan maqli jiray marka la hasaawayo orah ah, macaani naftayda ayaan kaa jeclahay. bal ka waran qof iyaad ka jeclaatay naftaada, yaa kuu ballanqaaday in qofkaasi kula waarayo sida ay naftaada weligeeda kula jirayso. ogowna mar haddii naftaada qof ka jeclaato, qofkaasi kulama sii joogi doono, waana xaqiiqo, waayo waxaad mar hore isu dhiibtay qofka, waxa aad dayacday naftaada. bal ka waran naf qofkii lahaa dayacay ma qof kalaa raba? jawaabtu waa may. daciifnimada joogtada ah iyo daryeel la'aanta nafta waxa ay timaadaa markaaad qof jeclaato ka badan intaaad naftaada jeceshahay. qof daciif ahna qofna ma rabo. qof kasta oo inaga mid a waxa uu rabaa qof awood badan, karti leh, naftiisa jacayl oo ku kalsoon. markaasi qofka kale waxa uu dareemi karaa in isaga amiyada ay sidaa kaa heli karto. laakiin haddii mid daciif oo naftiisa hore aad tahay yaa ku rabaa, yaa wax kugu falaya, waxa aad tahay eber. dib u dhis naftaada oo bilow inaad jeclaato, daryeesho, ilaaliso, qadariso naftaada. halka fure oo aad ku furi kartid jacaylka dhabta waa inaad naftaada jeclaato ka badan inta aad qof bini'aadama aad jeceshahay. markasta muuji farxad si ay kugu soo hirtaan kuwaanan faraxsanayn. markasta u muuji naftaada jacayl si ay kugu soo hirtaan kuwa doonaya jacaylka aad siisay naftaada mid la mid a inay helaan. noqo adiga sameeyaha wax waliba, laakiin ha noqonin loo sameeyaha ama raadiyaha.